السلام عليكم أصحابي وإن سلام يا أيام قفت هاد ليس يوتيوب channel كي كسر دو إن وحنا تشينيا إن شاء الله إن وحنا سوديو إن قن عندنا سماعة جيران سوي رجعت يوم tripod باش التلفون كله حرا تعدك صحيح بقوا مقلسان كليا بقوا مقلسان حرينا كه شيء كذي فوشة iyo uurka iyo nolosha waxaasoo dhan aan ka hadla rabay story time baa iga sugayseen I know waa daahay 9 beri baa iga dhiman maha wax sahlan ma aha laakiin waa barako loo baahan yahay waa farxad weeyaan ta kale waxaa jirta dadka badanaa kama hadlaan postpartum depression madaraa hooyinka ku dhaco markay umusha yihiin yes oo hooyada la joogaa laakiin markaa dhaawaca ahaa waa oyn jira habeenkii because ma fariisan kartid ilmaha wuu oynayaa adiga dhaawaca sariirta kama soo degan kartid wax sahlan ma aha hooyinka marka walaahi xaq 3 jeer waxa loo siiya qabaan ilaahay horta hooyinka dhan ha xifdiyo sheekadan ku guda galo aniga ilaahay amarkiis marka urka qaadayay 4 bilood dhiig iguma dhicin wax dhiiga 4 bilood iguma dhicin dhakhtar aade full check up igu sameeyay full check up igu sameeyay wuxuu dhahay hormoonkaaga waaye ee waxba systemkaaga kama qaldana wax maqli jira badanaa awal naagta markaysa dhiig ku dhicin caado ku dhicin urinaysa qaadi kare waxaas qiyaalo waa horta wiligaa ha dhageysan bin aadam marka waxaan rabaa inaan ka hadlo marxaladaha uurka markaa leedahay maraysid 3 qaybood weeyaan uurka 3 qaybood waa first trimester second trimester iyo third trimester Englishka lagu dhahaa Soomaaliga laakiin hadda aan fikiro inaan soo raadiyo noqonaya waxa lagu dhaho qaybta ugu horeysa waa qaybta walaca qaybta xigta oo marka walaca ka baxdo qaybta ugu dambaysa waa marka adiga 8 9 bilood aad gasho aad cuslaato weeyaan aniga walacaygi ilaa amarkiis horta waa tii aan zaidka u caatoobe uurka marka qaaday because appetite-ka iga xirmay appetite ma lahayn wax ma cuni jirin 24/7 waa dibirsanahay ilaa amarkiis waa saas u dibirsanahay cunto ma cuni karo walaca ugu horeeyay haddana walaca lagu sheegay gaalada waxay dhahaan morning sickness waxa yiraahdaa ma jirto morning sickness waxa ugu caama waa aqaan baani waa matag aan joogsanayn haween ha noqoto xidid dunta ha noqoto cunto kasta saas u cuna waa matagi jiraani dadku way kala duwan yihiin dad waxa jira matagaas iyo walacaas ku dhala oo sariirtan ka soo kicin iyo dad waxa jira isla markiiba 4 bilood ugu horeyso 5 bilood hadba qofka galo uu ka kacayo aniga 3 asbuuc ugu horeysay markuu walaca igu bilowday 6 weeks ah umba sariirta jiifay ka bacdan waa kacay ilaahay amarkiis energy wiilka hadda dhalay ma sha Allah ilaahay horta ha xifdiyo ilaahay ubadka noo daayo laakiin kon energy-gi igu jiray uurkiisa marka lahaa isagii baa la dhashay intuu la egyahay yeesu energy u leeyahay ma sha Allah active very active waa ilaahay ha xifdiyo walaci markaa ka soo gudbay aan 5 bilood galay caloosheeda horta waxay muuqatay si fiican u muuqatay markaa 8 bilood galay toddoba xataa uma muuqanayn 8 bilood ugu baahay waxa laga yaabaa ilmaha labaad markaan qaado kulay 3-4 sano soo socoto ilmo ma dhalaayo ilaahay kan cimri ha siiyo oo caafimaad ha ku koriyo tijaabiso because I thought inaan ilmo dhalayn waxaas ay tahay waxaan ma isticmaalay ilaa abarkii markii ugu dambeysana oo iska qaaday dhaqantaas oo qaaday because 4 months ano caado igu dhicin si ur loo qaadaa that's weird long story short urka marka qaaday aniga inta walaca ku jiray iyo ilaa 5 bilood markaan galay walaca iga joogsaday jima aadi jiray waa iska soo ordi jiray socod culus saas ma qaadi jiray exercise normal ah adiga 7 bilood markaan galay waa iska daayay wiigi hal mar la aadi jiray jimka marka cuslaadana waa iska daayay gabigiisaba jimka dhanba waxay noqotay inaan socdo galab kasta waa bixi jiray badana saacada soo socon jiray 1 hour haddii aanan socon karin saacad 30 daqiiqo ba at least markas every single galab qoraxda markay qabowdo ba aadi jiray marka socodka muhiim waaye exercise-ka lagu sheegayo iyo socodka aad soconaysid gurigaaga ku samayn kartaa muhiim ma in gym aadid muhiim ah gurigaaga ku samayn kartaa YouTube-ka la galaa waa la search gareeyaa videoyaal maxaa la dhihi jiray waxaa ku qori kartaa home workout for pregnant moms English ku qori kartaa waa arkay waxay sameynayaan qofka adna ka koobi garay waxaan ku dhalay 41 week
iyo 2 beri aan ku dhalay 41 weeks and 2 days aan ku dhalay 9 bilood iyo wax la jira iyo 2 asbuuc umleynaya marka waxa dhacday suuxan soo kacay ilmaha ma dhaqaaqayo waaya waxaan ilmahan dhaqaaqan ilmahan uu dhaqaaqi jiray wiilkan maxaa qaldan klinika aan badana aadi jiray appointmentka oo aadi jiray aaday actually machine ma yaalo klinikada waa klinik yar waaye naagta waxay isku dayday bahal inay ku maqasho ku maqal karta heartbeatka ilmaha waxay tiri I cannot hear any heartbeat macnaheedu ay tahay ma maqli karo wax wadna garaaca ilmaha wadna garaaciisa ma maqli karo waa shakiye ana isbitaal weyn ee gudbisay waraaq ay qortay gudbisay Kalbareema Cape Town hadda joogto waa taqaana Kalbareema ka aaday heart monitor waxa la yiraahdo calooshaada lagu xiraayo lagu xiray waa maqli kari marka ilmaha wadna garaacisa marka next time I know haddii aan isbitaal aadayo foosheeda markay bilowdo hore kama aadayo at least 2 saacadood 3 saacadood markaan foolanayo markaas aadaya sababta saa u leeyahay waxa waaye kow marka adoo foosho hore marka ka qabato way ku wiiseeteynayaan wiisato waxaan ka wadaa fara lagu gelinayaa waa la fiirinayaa inta sentimitir as furte waxaan jeclaysta ma naagaha neysaska inkastoo in badan la dagaalay laakiin idul qaadanayaan because wadankan waa aqligaaga inaad ku joogtid marka aaday case biyo case cabitaana aan sii qaaday naag kastoo neysa ii imaato waa siinay oo qoslaay because danteeda ku jirta inaan dhaho siriteeda la hagaajiyay meeshan joogay dhanaal ii tirtiray wadan kasta waaye korabta lagu joogaa jinawi marka tahay waliba qiimo kama lihid wadan aadan lahayn marka joogto laakiin maskaxdaada inaad isticmaasho waa friendly iska dhigtid xoogaa wax siisid kontaran haata boqolan haata qofka neyska ku caawinaya u dhiibtid aqligaas loo baahan yahay meesha marka aaday waxay dhaheen 2 sentimitir furan tahay iyo 2 centimeters dilated lagu dhahay waxaan dhahay nabar ma arkin nabar yidis qabanayo laakiin oo hal mar la qabanayo laga foqaayo I'm like what's happening I'm okay aan ku dhahay 2 centimeter how qofka inuu foosho inuu waxa kama aqoonin waxa su'aal si weydiin marka arkay inaad urkay ugu horeeyay tahay waxa lagu dhahay ma bixi kartid waana joogtaa you cannot go marka saxan ku dhahay wax nabar ay ma hayo ma bixi kartid aqli ma ahaan aan isbitaal kuma jiri karee waa baxayaan ku dhahay foosho markii si fiican ii soo qotaa soo laabanaya waxay ku dhaheen no you 2 centimeters dilated anytime ilmahan imaan karaa we cannot take the risk haddii aad baxaysidna waraaq red bla bla ay sheegayaan saxiixisa oo lacala hadhow haddii dhibaato imaato ama jidka ku dhashay ama ilmaaga wax ay gaaraan it's your own responsibility waxbay waa adiga waxa mas'uulka tahay hadhow anaga eedna lama saarayo camal oo kale ay ka wadeen odaga xaajiga wuxuu dhahay iska joog waxba waraaqa saxiixin ura leedahay waa isku buuxdaa marka iska joog marka inuu iska joogay qolay u gudbiyeen 9 beri ka bacday oo meesha ka baxaya markay qolka i gudbiyeen mara lagu xirayaa oo gadaal ka furan iyo mara kale ay siiyeen oo saas u xirto gadaal aan isku qariyo xoogaa gaaban kubkaaga way muuqanaysaa dacasa la wareegaaye alaabta dhan shaah sinjibiile xulbad biyo wax kasta odaga ay keenay hooyo ka soo qaadaa meesha lagu keenay waxaan raadiyay inta meesha joogay waxaan raadiyay bouncing ball bahal yiraahdo oo isbitaal kasta laga helaa banooniga lagu fariisto oo kula bodbodaya oo badana jimka xataa way taalaa kaasaan raadiyay mid blue helay qolkeele naagaha niska weydiiyay dowladda meesha aaday adiga markay ahayd 10 saac galabnimo xoogaa nabarka awal wuxuu ahaa nabar yiis hal meel qabanayo oo saacad ka bacda 2 saac ka bacda haddana la qabanayo mar kale oo yaani wax waqti u dhaxeey laakiin hadda waxay bilaabatay inay xoogaa adiga dhowr daqiiqo inay qabto ilaa adiga 5 saac weyn hasay laakiin xanuun ma ahayn habeenkii 5 saac habeenimo markay gaartay markaasa foosha qofku ku yiraahdo wax sahlan weeye wax sahlan ma aha 5 saac habeenimo gaartay ay bilaabay inay zaid lii qabto lama jahwilo halka gumaarka zaid lii qabto haar fiicantay ma sha Allah bye asbuuqaas ku badbooday intaas meesha joogay
baranda dheer waaye qolal waaye halka qol baa 4 qof aad joogta sirta markay adiga fooshaada soo dhawaato oo sentimeterkaaga zaaid isku furfurto waxay meesha qolka lagu dhalaayo qolka la hawr video duwa idaa marka Soomaali marka daris kuliyihiin waa iska saan waaye ciyaalka allaha iska daayo laakiin wareer wey marka ani tal ahaan waa idin talinayaa 8 ciyaal iyo 10 ciyaal aad dhalaysaan is not nice bar qof kasta wuxuu ku qanacsan yahay haddii aad ku qanacsan 5 iyo 10 ciyaal sida chickenka hal mar inaad dhashid adigu aad jeceshahay dee waa adaa jecel mogta laakiin aniga ayaan ahaan ilaahay hadduu isii weeye 4 ciyaal ka badan I cannot cirka markaan gaaro 4 ka badan hooyadayba 4 ciyaal ay dhashay hal ciyaal uu ka saqayray marka 4 ciyaal baa iga badan alxamdulilah barandada marka isbitaalka aan ku socdaa halkana lounges aan ku sameynaaye lounges waa google garan karta dad aqoonin squats aan sameynaaye meesha barandada naagaha nasiska igu qoslayaan waxay ku hayaan energy badan haysan laakiin wiila sida because waxay dhaan badana marka energy leedahay oo fududahay oo waa ilmaha wiilka waaye gabdhaha way ka culus badan laakiin waa ka soo sheekeynaya insha Allah gabar oolkeeda marka qaada hadda aqoon uma leeyahay marka barandada saan u sii socdaa xanuunka isku ilowsiinaya halkan si bax waa neefsanaya neefta waa neefsanaya waxa lagu leeyahay dhaqaatiirtu waxay ku leeyihiin markay foolanaysid ha qaylinin because qaylada badan energy-gaaga uu dhameynaya hadhow foosha markii la gaaro ixda maxaa la dhihi jiray kugu adkaanaysa bas maanta dhan baa qaylinaysa inta xanuunka haysa qaylada marka kuuma habboon isku day inaad neefsatid markasta oo xanuunka uu kugu bataba ani waa neefsanaye derbiga madaxa ku gargaraacanaye laakiin ma qaylinayn laakiin waxaan qayliyey markii qolka la ii gudbiyey oo qolka lagu dhalay la ii gudbiyey naagta waxay ku tiri 5 sentimitir isfurte qolka intee saac waa mataqaanaa 10 saac habeenimo 10 saac oo subaxnimo weeyaan adiga habeen adiga maalin ay jimca soo galisay ahayd waliba afoolanaya haddana xanuunka qolka xanuunka gurmada dib ku gargaraacanaya naag qolka igula jirtay oo epidural oo la suray epidural aniga waa ka diiday waxaan ku dhahay I'm not taking any injections I'm not taking anything waxaan ku dhahay caadi u dhalayaa because waxaan arki jiray dad iga sheekeeyeen cirbadan foosha kululeysa dadku isku mid ma ahan dad waxa jira markii la siiyo hore ka dhala iyo dad waxa jira markii la siiyo maalmo ku qaadan sax laga yaabo inaad maalmo afoolatid xanuunkaas maalmo bismillah ana waxaan ku dhahay marka waxba cirbada marabo am okay waxa la dhahayo baby's heart is okay babygu waxba kama qaldana marka qol iskaga ka tagayaan markii aad qaylisid wadankan markii aad qaylisid baa nees ku imaansan laakiin neeska hadda xoogaa wax siisay oo la soo heshiisay way ka warqabtaa markaas every minute baa kula taagantay Allah marka dadka waa inaad aqli u adeegsataa gaaladan ma fahanti ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigay haddii Soomaaliya nabad ahaan leed ma kula tahay inaan qurbo joog lahayn wadankeena joog lahayn waxaan ku dhahay naagta neeska meesha klinikada iga soo gudbisay waxay dhahaysay hadda isbitaal weyn rabto ku isbitaalka ii direen isbitaal location ku yaalo waa meel safe kuma yaalo marka ma rabin isbitaal weyn oo meeshan deganahay xaafada deganahay iigu dhawaa rabe ilaa amarkiisa niyada waxa ku hayeen ilaahay waa ii rumeeyay anoonan raadinba waa la ii gudbiyeyba qolka lagu dhalayay markii la geeyey naag cirbad surneed meesha ku jirta qaylinaysa sister give me something for the pain waxay ku haysaa xanuunka wax ii sii xanuuna dareemaya dadaa waxaa jira dhabarka ka foosha dadna waxa ka fooshaan gumaarka aniga dhabar xanuun oo dhanba ma arkayn laakiin meesha gumaarka the abdominal halkan caloosha hoostiisa zaaid ima joojinay haddee ma joojis mataqaanaa ma joojis ma ku dhahayo haddee si macaan baa ku dhe fartan haddii afka lagu geliya caadi u calaalshanaysaa xanuunka foosha asaa ufoolnay meesha 10 saac waa lageey moogtee 10 saac iyo adiga 30 iyo something telefoonka xataa waa tuure waxba warka ma hayaan ku dhahe madaxa dadalkiisa ugu gargaraacanaya naagta u qeylinaya neeska waxaan ku hayaa please give me something for the pain xanuunka
waxa iga yareeyay isii niyada ii dhisaysaa sometimes waxay ku haysaa okay I'm gonna get you an injection isug idhahe isugtaas waa sugi kartaa le foosha zaa'id u kululaatay xanuunkaas zaa'id u kululaaday waxay noqotay nabarka lay qabanayo awal xoogaa layga fuqaayo waa neefsanaya mogtay nabarkii baan kula joogto inay noqoto come here you wanna say hi to the camera come baby come bisada dariska waa black and white waaye bisadeedii ilmaheedii wixii dhan waa fiijiyey because I cannot take it man naag bisada dhalaysa waxaa lagu leeyahay meeshan qalin lagu sameynayaa dhalmada laga xiraya maxaa igu wata markay dhashay ay hobtaa inay dhasho gurigay ku dhashay waa aruuriyo waa qaada maxaa dambigaas igu wata inaan qalin kusoo sameeyo iyo waxaas maxaa igu wata because I cannot laban aan kala harna Diego iyo Martin labadaas jooga nin ma dhalaayo mogti 4 o'clock in the morning 10 saac iyo 30 iyo something biyahayga jabe 30 iyo something biyahayga jabe biyahayga si kale kuma markay zaa'id kale ku haya fashion ilmahan soo bixinayo wax adigu a control karin kartid ma aha waxa moodaa wax ku soo riixay rabo inuu soo baxo like xaar zaa'id ku hayo kale aad rabti inuu dhaqso inta suligo dhaqso aska soo nafisid oo kale waa no I cannot control I'm like what's happening maxay gu dhacayo bismillah naagta u yeere naagta heeska u qaynaya waxba iima imaanayaan marka dambe ku control gareyn waa sariirtan ku orday lugiga sa u kala qaaday ilaahay oo sa u qayliyay le biyahayga wax adiga banooni camal oo kale iga soo baxay wax u qabaa nin ilmaha madaxiisa waa qayli naagta waxaan ku leeyahay babies coming ugu soo orday biyahayga dhacda u dhahay aan ku dhahay wiilka ku xigay ilmihi ordaan ku hal mara dhahay kaliya the second time ka aan dhahay si xooga u dhahay naagta ku hayso push garee asagoo ordaya waan ku dhahay iga soo baxay markaasaan ku dhahay markaasaan nafis iigu horeysay markaasaan neefsasho caadi ah aan neefsadoon ku dhahay indhaha markaasaan bilaab inaan xataa wax firfiiriyo ilaa hooyo xifti hooyada yes waarid waaye I knew ina waarid tahay laakiin keylesa ka aan jir like wax qiimo badan of course waaridku laga duceystaa caasima ihi awlaad caasima ihi lahay because waxaad adigu gasho awlaadada ka jira whether you like it or not I used to understand that markaan dhalinyarada xataa ahaa but at the same time like yani muxibo badan uma qabi jirin hooyaday waxaan jiray you know what dhalinyaranimo is laakiin markaan dhalay oo fooshaas aan maray uurka qaaday markaasaa bilaabina hooyaday jeclaado halaado hooyo dhibaatadaas ma iga soo martay oo sometimes su'aalaha badan ku baridina waxaan leeyahay hooyo waxaana soo darsantay waxaana cusub maxaa jira markaas qaar way xasuustaa qaar waxa ku sinaa waan ku dhalay ma xasuustay iga tag marka isaga madaxiisa ku xigay inuu iga soo baxay naagta tirtirtay neeskaas oo tirtirtay xabadka ii soo saartay waxay tiri naaska afka u geliye naaskii iska shaqeeya anasaas ma lahayn dadka isku mid ma aha dadka qaarkood caano hore naaskooda ka yeesho da'o iyo dadan caanahooda badneena jira dadka caanahooda badneena ku jiraan markuu iga soo baxay naagta neeska way tirtirtay xabadka ii saartay naaska afka u geliye markaas nafsi ugu horeysaan ku dhahay bahal maxaa la jiray mandeerta babyga waa soo baxaade iga soo bixisay waa dig baxaan ku dhahay dig fara badan ay ka baxeen naagta waxay ku sheegtay stay still ina fiiriyaa raba meesha ay diga ka imaanayso waxaan ku hayaa I'm in pain tartiibi markii dambe wuu joogsaday diga alxamdulillah wax bay samaysay maaqan irbad kale lama siinin xinjiraan ku dhahay xinjiro 9 bilood uurka lahayd taas bilowda caadadaada kugu dhici lahayd oo ku aruurta camal oo kale xinjiraan ku dhahay beer baan ku intaasoo neef beerarkooda u eg baa iga soo baxayaan ku dhahay jif anyways irbada kawisada markay igu durtay dad wax arki jira kawisada irbada markay lagu diro la sugo xoogaa 2 minute camal oo kale markay kawisada ku gasho qofka la talo igu soo aadiyay sa u habaarayay waxaan ku hayaa irbada igu dhufanaysaa isla markii uu tale waxaan ku hayaa u kaadi irbada igu dhufo sug intay iga galayso jirka iga galayso because irbada ay igu talisid I'm a human waa dareemaya
adba maad ogolaateen nisaa lagugu sameeyo marka naagta maan ku qayli xoogaa bay bilowday inay sugsugto maa marka hore waan ku cirbadda ugu dhufanaysa hore iga tolaysaa markaasaa markay tolmada cirbadda markay galayso aan ku jirkaaga saa u dareemaan kurasa u boodaya far qodob lee iga tolay 2 qodob gudaha ah iyo 2 qodob oo banaanka ah wax yar is jaray because asagana wuxuu ku dhashay 3.2 kgs uu ku dhashay haddana wuxuu ekaa ilmo 2 something kgs inuu ku dhashay laakiin he was tiny 3.2 kgs tiny ma ahaanba laakiin isaga cause cunto ma cuni jirin caatu ahaa cunto ma cuni jirin cuntada ay dhibaysay wataan baaba'ay marka xoogaa 8 bilood aan galay bilaaw ina xataa cuntada markaas xoogaa cuno markaas the whole day waxa cuni jiray qado kaliya maalintii ma la quraacanayo habeenkii ma casheenayo qadada cuna maanta dhan ku jooga biyo iska cabaya oo iska dibirsanahay marka taasaa keentay inuu weyna way ii fiicneed because ilmaha markuu calooshaada ku dhex weynaado fooshiisana waa waqtiga qaadataa soo bixitaankiisa waqtiga qaadataa waxaa laga yaabaa in lagu jaro haddana marka silac maxaa caqli leeyahay haddii xataa lacala next time u raqaado abteedkayga xataa uu furan yahay xataa cunada waa iska ilaalinaya waxa ilmaha kugu koreeya waa jalaatada iyo ice creamta iyo waxaan qabow isku daldalaysid iyo cuntada minidka u cunaysid laakiin saddexda waqti quraacada qadadaada cashadaada caadi haddaa u cuntid ilma kugu weynaanay ma jir biyahaagana cabtid meesha juuska ka cabisaan kookadan qashinkana ka cabisaan waxa ka caafimaad badan biyo inaad juuska dhigatid biyahaas cabisid badan cabisid way ku caawinay 8 bilood markaa gaarsha u gashidna soco waxba exercise sameyn soco leh 30 daqiiqo maalinta ka soo socota ka badan soco xulbad cab xulbad shiido videoga soo dhigay youtube-kayga xulbad shaah sinjibiil la karso sinjibiisha way ku caawinay cab ma fahamtay qudradaas la cunaayo la iska qariidayo iska qariid waxaana la isticmaalaa biyaha badsatid walaa waxa kama halaawayo dadka aniga waxa lagu hayay raspberry tea waana cabto kan kale annaas waana cabto annaasna ma cunin raspberry tea ma raadin ma cabin xulbadaasaan ku noolaa iyo biyo iyo shaah sinjibiil make sure uurka intaa leedahay inaad vitaminkaaga cunto vitamina jiro sawirkiisa meesha idiin soo dhigayaa vitaminkaas aniga kaasa isticmaali jiray bil kasta soo gadan jiray vitaminka isku day inaad cuntid because vitaminkaas jirkaaga qurux ku noqonayo dhiigaaga ku saxmaayo ayana ku jiro folic acid ku jiro wax kasta isku jiro aqri descriptionka hope smooth kugu dhamaanaysa insha Allah uurkaaga dad ay soo weydiinay dhahayay masku xaartay horta xaar iyo kaadi iyo wax kasta la isku darayaa because meesha ilma ka soo baxaya aniga ayaan ahaan of course xaar yar way soo dhaaftay laakiin dada ku shaqul inay ka hagaajiyaan so you don't have to worry waa ifaantay waa umleynaya you don't have to worry just that push markii lagu leena push garaysid awoodeedii ahaysid make sure ina gaajo aad isku dilin ani gaajo iskuma dilin markaan klinikada aadayay quraac ma cunin qadada xataa waxa cunay markii la geeyay meesha odaga igu keenay qada la cunay shaahiga iska daldalay intaas waxaan islahaa cuntada badan iska daa yaadan isku xaarin laakiin ixda qeyladan qeylinayay waa isoo dhaaftay waxaas uma jeedid laakiin waa dareemi inaan markuu soo baxayo wax kale soo baxay waa dareemi ina xaar soo baxay waa dareemi aniga ma aaminayo gabar Soomaaliya foolatay especially ilmaha ugu horeeya uma xaarin ama ma kaadin ma ka yeelayo because aniga ugu horeeyay klinika isbitaalka gabdhaha ugu dhalay qola la geeyay almost 9 naagood dambe ayga dambeysay qolka la keenay iyagana South African cadaan iskugu jiro waa warwareysanaynay badanaana horta wiilal ay dhaleen waxaan sanadkan waa sanadka wiilasha haddana most of them waxay ugu dhaheen qaar waxay ugu dhaheen kaadiya soo dhaaftay qaarna waxay ugu dhaheen saxara soo dhaaftay inta u badnaayeen waay marka waxa aaminay naagaha Soomaalida inay been sheegayaan ay yiraahdaan ma xaaro iyo cuntada caloosha inaad banaysid waa si kasta caloosha u banaysid cuntada maybe my next baby waa kasoo sheekeynaya ba wax way soo dhaafaysaa waxa ku sheegayaa dhalmada ilmaha ku soo dhaafo nafisa yes wheelchair naagta ii keentay wax xasuustaa neeska itolisay
wheelchairka waxaan ku hayaa ma fariisan karo qolka ii wadi waa u lugeynaya waxay tiri waa dhiig baxday ma wareerisid miya waxaan ku hayaa ma wareerayo I can walk maxaa ma fariisan kara meesha dhan hoos dhanaa ku dhaawaca takale markaa imaatid horta the first week waan ku dhahay was xanuun meesha ma kaadan kartid ma socon kartid si waxa u soconaysaa qof wiil la guday wiilashii markii la gudo u socon jireen ba u soconaysaa laakiin it's just the first 10 days tobanka beri ugu horeysa lee waaye make sure biyo kulul inaad ku fariisto deetal aad ku shubato ama cusbo leh biyo cusbo leh make sure biyaha qandac kaliya maa ina xoogaa kulusheeye amaga ku fariisanaysa aad dareemaysid demo kuleel yahay demo adna aad dhaqso biskoonaysid aniga tobanka ugu horeeyay 28 beri anoo dhalan stitcheska kii ugu dambeeyay iga soo baxay laakiin 2 beri maalinta ku fariisanayay subaxii iyo galabtii ku fariisanayay biyaha takal hooyaa tahay maalin kasta aniga maalin qabowaha maalin dhaaf oo qoysan jiray laakiin naas haddaad dhigaysid balaya kaasoo oraysa you have to bath every single day marka wallaahi hooyanimada iyo dadaa jecel inay qalin ku ordaan iyo waxaas laakiin qalin abuuran advice wax ka carraysaa foosha kulaalkeeda laakiin aniga ayaan haan waxaan foolanayay 6 saacadood foosha kulaalkeeda waxay ii bilaabatayba 5 saac habeenimo 10 saac oo subax 10 saac iyo 40 subaxnimona waa dhalay maalin jimco soo gelayso marka 6 saacadood foolanay alxamdulillah ilaahu ii fududeeyay exercise kana kind of worked because inta foolanay xataa waa lugeynay ma fariisanin xanuunka isku ilowsin halaan ku baxan make sure ina some active tahay aad socon kartid wax uun samayn kartid laakiin fadhi maanayo energy-ga ka dhawaanayo ilaahay ii fududeeyo hooyinka uur kale aniga dambeeyo hadda maalmo u dhiman tahay ama bilo u dhiman tahay ilaahay idin fududeeyo insha Allah oo idin soo duceynaya walaashin baahay subscribe ii saara ii soo dhaweeya waxaan rajeynayaa video editingka kuma fiicnay but I'll try to improve myself by watching videos from YouTube walaas hooyanimada waa darajo wanaagsan weeyaan laakiin darajadaas waa inay ku bedeli karto responsibility marka hooyo noqotid waa inay hooyanimada ku bedesho gabdho waxa jira markay hooyo noqdaan ilaa markii stresska nolosha waarun nolosha horta wax sahlan ma aha laakiin you have to be strong haddaad strong ahayn atraadid waxaan maxay ugu dhaceen waa la ooynaa stress la sameynaa qaar abroad u isticmaalaya it's not healthy wallahi balwadaas ay isticmaalaysa xataa it's not gonna help waxba kama bedelayo xogaa ka bacdi ka baxda balwada stresski wali waa jira dhibaatada waa jirta laakiin ilaahay tala saaro wallahi waxaan ogaaday nolosha ilaahay haddaad tala saaratid salaadaada 5 waqti si fiican u tukatid waan ku dhahe oo ilaahay gacanta u taagatid salaad leel u kacdo 2 ragcadood wax kasta aad sameynaysid 2 ragcadood istiqaara ka tukatid oo ilaahay la tashidan ku dhahe wallahi waxa ka ma halaabayo haddii xataa aadan haysan waxbaan ku kushinin aadan haysan maanta qalbada baa ka xasilan tahay يعني wax walba kugu jiro ilaahay waa salaadaas tukanayso ilaahay ku xiran tahay ilaahay talada u dhiibatay ba qalbadaasan ku baa waxa ka tahay qani adoon waxba haysana qalbada waxa ka tahay qani wiligaana bin aadam baahidaada looma sheego famigaaga Allah ka dhigo baahidaada looma sheego ilaahu rabbiyo marxaladda maanta ku jiro maxaad wanaagsan ma aha laakiin ilaahu rabbiyo adaa iga saari kara ilaahay la tasho Instagram-kayga Snapchat-kayga YouTube-kayga magacyadooda waa kaas ha ilaawin inaad subscribe like iyo share ay taabato ilana soo wadaag waxa rabtaan inaan soo dhigo next time